السلام عليكم أصحابتا ku xiran jeel xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub halkan waxa ku soo gudbinaa xirfadaha online ka banaan kuwaas oo lacag ka sameyn karto hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir hadii aad hore nolo joogteen muuqaalkan like saar soo gaar asxaab badan soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sida loo analyze gareeyo cryptocurrency waana muuqaalkeeni afraad san hore u soo wadnay waxa aan soo diyaarinay saddex muuqaal oo hore muuqaalkii koowaad waa kan hadii aan daawan soo daawan kartaa muuqaalkii labaadna waa kan oo number 2 ayaa ku dul qoran muuqaalkii saddexaadna waa kan oo muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan soo galiyay one day ka hor marka muuqaaladayda waxa bariyahan dambe ku yimid gaabis taasoo ay sabab u tahay dadka like saara oo aan muuqaalada like saarin iyo daawashadeeda aad u liidata maalmihii u dambeysay dhalinyar badan ayaa soo codsatay in muuqaaladan halkaa ka sii wado aniguna ma joojin doono oo halkaas ayaan ka sii wadi doonaa laakiin muuqaaladan iyo muuqaalada ka dambeeya waxaan idiga codsanayaa inaad like badan ii saartaan muuqaalkan maanta waxa uu daaran yahay saddex qodob qodobka koowaad waxaan isla eegi doonaa halka uu marayo maanta suuqu iyo daadashadii ugu dambeysay ee suuqa ku dhacday maanta bitcoin kor ayay u soo kacday waxayna gaadhay 101,000 ay gaadhay Ethereum 2,000 iyo waxay maraysaa 249 XRP inkastoo ay xalay ilaa halkaas taagneed 1.99 laakiin maanta kor ayay u soo kacday oo mar waxay gaadhay $2 laakiin intii ugu dambeysay hawarkii ugu dambeeyay dhan waxay ku jirtaa asaan salona waxa ay gaadhay 120 ay dollar ay gaadhay laakiin hadda waxa ay maraysaa 130 maanta waxaan analyze gareyn doonaa coinka Cion oo kaas oo hadda maraya $2.50 waxaan ku tusi doonaa qaabka coinanka loo analyze gareeyo casharkan waa casharkeeni afraad muuqaalkan hadii aanad muuqaalka hore leegi saarin muuqaalkan leegi saariguna dhiirigeli in YouTube-keena kor u soo kaco maadaama uu hoos u sii socdo YouTube-keena taasina ay sabab u tahay ardayda inagu xiran oo aan leeg saarin waana codsigii koowaad ee aan idiga codsado marka waxaan eegi doonaa suuqu sida arkaysaan waa uu dhig baxaya oo wada casaan ay ku jira marka loo eego GNS coinka la yiraahdo oo 4% dhaqaaqay kana waxa uu daatay kan cagsigiisa weey oo daatay 7.3 marka coinan badan oo aad yarna waa ay soo noqdeen laakiin coinankii waaweyna oo dhan waa ay dhig baxayaan marka waxaan hadda geli doonaa sida coinka loo analyze gareeyo coinkan hadda halkan waanadi muuqaalkii ugu dambeeyay kaga soo hadalnay trend view-ga sida loo samaysto hadii aanad coinka Cion ku soo darsan halkan ayaad ku dhufanaysaa kadib marka xaga ku dhufato halkan ayaad ku qoraysaa Cion marka Cion ku qorto waxaad dooranaysaa cabinays la socoto marka ad baad leedahay marka saas ayaa ugu soo daray hadda oo arkaysan laakiin delete ayaa iska leeyahay marka Cion halkan aan ku jiray markaan time frame-yada one day-ga ayaan ka bilaabi doonaa one day-ga wakaas ayaan ka bilaabay hadda waan joogaa waxaan eegi doonaa value gap-kii ugu hooseeyay halkan dhamaan hadda dhaqaaqan waxa dhaqaaq hore oo April 25-keedii ay ahayd halkan uu dhaqaaqay suuqu markii uu sareysay waxa uu gaaray 4.28 ayuu gaaray waa soo daatay ilaa daadashadaas oo maanta maraysa hadda arkaysaan wali waa daadanaya suuqu 2.49 ayuu isla markiiba tagay anigoo muuqaalka duubaya value gap-kii value gap-yada waxa la yiraahdaa meelaha suuqa value gap oo kale waa halkaas noqonaysa ilaa value gap-ka kale ee u sareeya marka value gap-yada hore ayaan u dhigtay marka value gap kalena waa kaas inta u dhaxaysa ayaa la yiraahdaa marka value gap-kii halkan marka saal ugu soo noqdo value gap-ka la ixtiraamo sida suuqyada caadiga ah sameyn lahaa oo tiima ay suurta galin oo waxay mid suuqa inuu dagaalo ay bilaabmaan kuwaas oo ka bilaabmay bariga dhexe saad u socotaan marka suuqa saas ku weeyay markii hore laakiin hadda suuqu waa isbedelay hadda value gap-kii oo arkaysaan halkaas ayaa u sareysa oo value gap-kan kan dalkan wiigiisan in la gaaro oo arkaysaan inkastoo la gaaray laakiin lama gaarin weli wiigiisa lama gaarin oo markaan hadda kuma degdegayo waxaa dhici karta in suuqsan uu socdo marka waxaa dhici karta in suuqsan hadda ku socdo oo ku sii socdo oo hadda wuxuu ku socdaa oo arkaysaan saas ayuu ku socdaa suuqu saarkisan low high low saas ayuu ku socdaa high low
in saa suuqa ku sii socda ayaa dhici karta. Low high low high kaas ku soconaya. Marka halkan ma arkaysaan in ani markii horeysay waxaan doonayay value gapkii ayaan xagaasaan dhigtay. Waxaan doonayay value gapka marka la soo xiro oo arkaysaa in kol la ixtiraamay oo value gapkaas halkaas weeyeen. halkaa weeyaan value gapkaas marka la gaaro waa la gaaray kadibna candle buy ayaa soo baxay, laakiin waxa ka xoog batay newska suuqa oo suuqa waa sii daatay. haddana value gapkan kale ayaan doonayay in la gaaro. value gapkan ayaan doonayay in la gaaro waa arkaysaanba wala in yar baa la taabtay, laakiin haddana sidii kaasoo kale uu sameysmay ayaa waxay dhici karta inuu suuqa news soo baxo, laakiin istiraatiijiyadu way saxan tahay oo halkan marka aan ka soo galo ilaa halkaas waan kaga bixi karay, laakiin waxaan sugayaa newska. marka halkaa waan kaga bixi karay. marka newska ayaan iska sugaynaa marka inuu suuqani sii daadan doono. haddii uu sii daato faa'iido fiican baad ka sii samayn doontaa oo halkaas meelahaas maad ka soo iibsan doontaa suuqa. meelahaas waa $1 iyo 70 senti baad kaga soo iibsanaysaa. marka aan $1 iyo 70 senti baad kaga soo iibsan doontaa, kadibna halkaas maad ka soo raaci doontaa. faa'iido fiican oo aad ka samayn doontaa adigu marka halkaa suuqa ku yimaado ayaad gelaya. anigu sida aan rajeynayo halkaas OB-ga u sareeya markuu tago oo ah 3.58 meelahaas ayuu yahay 58 oo kale marka uu ii tago ayaan dib iskaga iibinaya, waayo waxaa dhici karta in newsyo kale haddana imaadaan suuq soo daato. laakiin OB-gaas waa in la tago. OB markastoo la tagana suuqa waa u daataa. marka analyse-kan intaas ayaan kusoo koobaya. dhammaan waan analyse garayn doonaa suuqa. hadda ayaan ka bilaabay, Cardano ayaan ku xigsiin doonaa, XRP ayaan ku xigsiin doonaa, Solana ayaan ku xigsiin doonaa. marka qaabkaas ayaad u analyse garaynaysaa adigoo candle daily-ga ku isticmaalaya markasta, waayo daily-gu wuxuu kuu sheegayaa daygan suuqa la joogo maalinlaha waxa suuqa ka dhacaya. waa arkaysaan marka qaabka trade looga qaatana waan ku tusi doonaa, waayo trade-ku markaad qaadanayso waxaad tegaysaa 5 minute oo kale ayaad tegaysaa. kadibna halkan marka aad tagto waxaad leedahay halkii aad markii dhaweyd dirtay oo kale ayaad dhiganaysaa. si aan helno halkaa oo candle halkii linkii value gap noo yaalay. markastoo suuqa intaa ka kacay oo kale ayaad ka analyse garaynaysaa, laakiin iyadana mar kale oo gaar ayaan ka hadlayaa. laakiin hadda halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa casharkan. casharkan taxana ayuu noqon doonaa. maalin kasta inaad la socoto muuqaalkana like saar, waayo muuqaaladaydii oo dhan like la'aan ayay hoos u sii socdaan. YouTube-kuna markasta oo qofka like saaro unbuu kor u kacaa. marka idinkana si free ayaan wax idigu soo gudbiyaa, idinkuna si free like-ta u saara ha iga iibinine. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.